كلام مرتين به تعالوا كنتوا عن ورئيسن dadka nadaamada meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idin ka soo gudbinayno studio-ha ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka barnaamijkan ku soo foodleh ayaa daawadayaal waxa uu yahay dood sida muuqaalkan aad ka aragtaan u dhaxaysa Yaasiin Saalax Ducaale oo garabkayga midig fadhiya iyo Cabdirasaaq Cali Boos oo isaguna garabkayga bidix fadhiya labaduba ay dad fara badan oo Soomaaliyeed ay aad u yaqaanaan waxaana doodooda ay maanta ku saabsan tahay labadooda oo inkastoo ay isku deegaan ka soo jeedaan haddana kala taageersan siyaasadda laba gobol oo kala duwan oo waliba siyaasad ahaan labada gobol aanay aad isu jeclayn waxaan eegi doonaa qadiyadda reer Maakhir heshiiska nabadeed ee iminka isna ka socda ama laga bilaabay magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag arrimahaas oo dhan iyo siyaasadda gobolkaas ayaynu doodaasi ka dhigi doonaa anigoo Ali Xaraara ayaa hadalka u qaybin doona daawadayaal ku soo dhawaada mar kale Yaasiin Saalax Ducaale iyo Cabdirasaaq Cali Boos soo dhawaada idinkuna waayahay aan toosban su'aalaheeni u gudageli doona waxaan ognahay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo shaashadaha inaga daawada in aanay mooganayn oo ay og yihiin in Cabdirasaaq Cali Boos uu si weyn u taageero Puntland waliba si xoog leh waxaan kala ognahay bilahan u dambeeyay in Yaasiin Saalax Ducaale uu isaguna si weyn u taageero gobolka Waqooyi Bari isagoo waliba laascanood booqasho ku tagay oo halkaasi cabaar soo joogay Cabdirasaaq laftiisana uu booqasho ku tagay Puntland oo isna halka uu soo joogay aan idin weydiiyay marka ugu horeysa gobolkaad matashaan dadka aan aad idin aqoon hadii aan sheego uu yahay Maakhir ama beesha Warsingili hadiiba afka lagu dhifto waxaan ku bilaabi doonaa hadalka Cabdirasaaq ma Puntland baa dadka u dana beeshina hadaan ilaahdo mise hadii ilaahay ku reeyahay waxa u dana gobolkan imika ay tageen ee Waqooyi Bari ee caasimadiisu tahay Laascanood aduu hadalka hore بسم الله الرحمن الرحيم علي aad baa mahadsantahay Yaasiin adna aad baad u mahadsantahay inaad maanta dood leena dhaxdhigo anigu waxaan aaminsanahay dadka deegaankaas aanu ka nimid aniga walaalkii Yaasiin in 98 ay wax ka dhisteen Puntland xilal ka hayaan deegaankoodu ka mid yahay hadda mashaariic ay ka wadaan xilal kala duwan noocyo kala duwan ka hayaan kursiga labaad oo gudoomiyaha baarlamaanka ah meesha dawladda ka unkato ay iyagu lagu soo doorto mar walba madaxweynaha hadda kor ay u tartameen at the same time deegaan ahaan magaalada Boosaaso ee magaalada ganacsiga ah ay tahay magaalo ay dadkaas kala bardegaan oo xildhibaano badan laga soo doortay ilaa 20 ka tuulo u dhowna ay iyagu degan yihiin oo caanaha iyo wax walba keenaan marka meeshaas 27 sano ay jirtay Puntland waa maamul ay dadkaas maal gashteen oo ay kamid ahaayeen kuna soo caana maaleen cabasho waa jirtaa meel walba cabasho here and there waa jirtaa cabashadii faa'iido u qaadan doona laakiin waxa u dana laakiin Puntland baa dadka u dana dadkaas Puntland baa u dana oo ay kamid yihiin de guuridna hadda guuraysidna waa la sahan guuray la iskama guuro marka anigu waxaan aaminsanahay Puntland baa u dana waa mahadsantahay Yaasiin dadka xagee u dana horta cali aad iyo aad baan ku mahadsantahay iman maanta TV-gaaga nagu casuntid saaxiibkaaga marka dooda ila wadaaga aanu saaxiibnahay Cali Boosna waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantahay markaan u guda galo dantu iyay ku jirtaa gobolkaas la yiraahdo Maakhir Cali oo sida ogtahay 20 sano u dambeeyay waxay ku jireen Puntland ay wax ku darteen soo walaalkay sheegay Cali Boos laakiin waa ku hungoobeen oo de mashaariic kama helin wax qabadkii marka ay rabeen inay wax la qaybsadaanna kama helin taas waxay dhalisay isbedel inay muujiyaan oo ay eegaan dhinaca kale iyagoo ay ka dhigeen meel la isku haysto Puntland ay ka dhigtay gobolkii meel la isku haysto